Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaridka Yuud oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta ugu waramayay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay xaaladaha tan ka taagan dalka Djibouti iyo sidoo kale dibadbaxyada ay dhigayaan shacabku isagoo uu sheegay in xilligii madaxweynaha Ismaaciil Cumar Gelle madaxweynaha dalka Djibouti uu dhamaaday isla marhaantaana ay haboontay waqti xadirkan inuu sameeyo cadaalad iyo sidoo kale tanaasul isagoo ugu baaqay madaxweynaha Ismaaciil Cumar Gelle madaxweynaha dalka Djibouti inuu u dhaganugla dibadbaxyada iyo sidoo kale kacdoonada shacabka isla marhaantaana uu sii daayay askariga dulmiga u xiran sida uu sheegay waxaana uu sidoo kale ka hadlay injineer Faysal Cali Waraabe isla marhaantaana uu taageeray aboogay ay maalinnimadii shalaheed ku sameeyeen xildhibaanada labada aqal baarlamaan ee dalka Soomaaliya madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maalinnimadii shalaheed furayay kala fadhigay toddobaadii labada aqal baarlamaan ee Soomaaliya injineer Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaarid oo arrimahaas iyo arrimo kale ka hadlayay waxa hadaladiisii kamid ah bismillaahir rahmaanir rahiim laba arrimood ma taagna horta qoladii baarlamaankii Muqdisho waan tahnideen maanta sanadkii iska celiyeen way iska celiyeen waxay tusayeen inay dalka leeyihiin way ku fooriyeen ya waxa leenahay gacan baan idin taagnay waan tahnideynaya Djibouti waxa leenahay madaxweynaha cadaalad samee waqtigii absolutism way dhamaatay waqtigii magtaay dictatornimadu way dhamaatay waxa leenahay أنا ما أنتي نمبر كلها مر أفراد من أردي وحنا أرد وحنا أفراد كشق أساسي دتك أدو دادتين هي خيراتك أدو دادتين هي ودتك أردن وقال لها خيراتك جبوتي لكن قاعد المروج يوم قرانا سعدادس هرا لو ما معي وحنا ولا على كل عمه لواه محمد زياد براس عمر إنا إلى بين صامرنا سكت كانوا صامرنا نيمت all that absolute مسؤولية absolute dictator مسؤولية وعلينا آخر هذا كشغله والسويدية كيف حكمت قالوا قرنا يا آخر كيف الله بالله ما كان إلهي كبه علينا فأنا سودا حقوق الأساسية بايلتك شير كان ينجح كشيء شير لا نحن يصلب بحولي شير وقاعديني يا كان الأوران واتشان عيسى يا الأوران إثنين نجاه جالس بالله تشاركنا السلام عليكم